Akhyaarta sharafta badan ku soo dhawaada janaalka dhacdooyinka dunida tuyub aad uga barateen barnaamijyo xiiso badan. Maantana mawduuca waxaan idinkugu haynaa dhismayaasha ugu dhaadheer caalamka, magacyadooda, inta mitir ay gaaraan iyo halka ay ku yaalaan. Waxaan mawduuca maanta kusoo qaadan doonaa 15 dhisme oo ah 15 dhisme ee ugu dhaadheer caalamka gebi ahaanba. Waxaan kasoo bilaabi doonaa nambarka 15aad inagoo ku keenayna nambarka 1 ee ugu dambeeya. Fadlan janaalka hadaad ku cusub tahay subscribe saar, like si ay dhiirigelin inoogu noqoto, batanka gambalaalkana furo si muuqaaladeena xiga ay kugu soo dhacaan. Dhismaha 15aadi waa Landmark 81 oo ku yaala Ho Chi Minh City ee dalka Vietnam, mitirkiisuna uu gaaro 461.2 mitir, waxaana la dhisay 2018. Dhismaha 14aadi waa Lakhta Center ee ku yaala St. Petersburg ee dalka Russia, mitirkiisuna uu gaaro 462 mitir, waxaana la dhisay 2018. Dhismaha 13aadi waa Central Park Tower ee ku yaala New York City ee dalka Mareykanka, mitirkiisuna uu gaaro 472, waxaana la dhisay 2020 ee ah sanadka aynu ku guda jirno. Dhismaha 12aadi waa International Commerce Center, xarunta ganacsiga ee caalamiga ah ee ku taala Hong Kong, dhererkeeduna uu gaaro 482, waxaana la dhisay 2010. Dhismaha 11aadi waa Shanghai World Financial Center ee ku taala magaalada Shanghai ee dalka China, dhererkiisuna uu gaaro 492 mitir, waxaana la dhisay 2008. Dhismaha 10aadi waa TB 101 ee ku yaala Taipei, dalka Taiwan, uuna gaaro dhererkiisu 508 mitir, waxaana la dhisay 2004. Dhismaha 9aadi waa China Zone ee ku yaala Beijing, caasimadda dalka China, dhererkiisuna uu gaaro 528 mitir, halkaana laguma sheegin sanadkii la dhisay. Dhismaha 8aadi waa Tianjin CTF Finance Center ee ku yaala Tianjin ee dalka China, dhererkiisuna uu gaaro 530 mitir, isna aan la sheegin sanadka la dhisay. Dhismaha 7aadi waa Guangzhou CTF Finance Center ee ku yaala magaalada Guangzhou ee dalka China, dhererkiisuna uu gaaro 530 mitir, waxaana la dhisay 2016. Dhismaha 6aadi waa One World Trade Center, xarunta ganacsiga adduunka ee kelida ah waa sida ay u taagan tahay ee ku taala magaalada New York City, dalka Mareykanka, dhererkiisuna uu gaaro 541.3 mitir, waxaana la dhisay 2014. Dhismaha 5aadi waa Lotte World Tower ee ku yaala Seoul ee dalka South Korea, dhererkiisuna uu gaaro 554.5 mitir, waxaana la dhisay sanadkii 2016. Dhismaha 4aadi waa Ping An Finance Center ee ku yaala Shenzhen, magaalada la yiraahdo ee ku taala dalka China, dhererkiisuna uu gaaro 599 mitir, waxaana la dhisay 2017.
Dhismaha saddexaadi waa Abraj Al Bait Clock Tower ee ku yaala Mecca, Sacuudi Arabiya, dhererkiisuna uu gaaro 601 mitir, waxaana la dhisay 2012. Dhismaha labaadi waa Shanghai Tower ee ku yaala magaalada Shanghai ee dalka Shiinaha, dhererkiisuna uu gaaro 632 mitir, waxaana la dhisay sanadii 2015, waxaana lagu magacaabaa inuu yahay dhismihii mataanaha ahaa ee ugu dheeraa. Dhismaha koowaad ee barnaamijkeena ku xusan ee ugu dambeeya waa Burj Khalifa ee ku yaala magaalada Dubai, dalka isku taga Imaaraadka Carabta, dhererkiisuna uu gaaro 828 mitir, waxaana la dhisay sanadii 2010. Halkaana waxaa inoogu eg barnaamijkii aan uga hadlaynay dhismayaashii ugu dheeraa caalamka.